واتهي عبد الله أحمد نور مرات كعربته أو كمد طبعا كدل وصبول سن دنيا دنك بيها معان أيا أدري ديارده هودا سراسي أي أبع رميان ضرورها إسلام كان الله له الرب دقدقة waddanka Imaaraadka Carabta oo kamid ah wadamada Carabta kuwooda ugu dhaqaalaha badan ayaa dhanka kale waxa ay kamid yihiin wadamada ugu faqrisan dhanka biyaha macaan caalamka oo dhan waxa ayna ku dadaalayaan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen dhibic waliba oo biyo ah iyadoo la isticmaalayo tiknoolajiyada cusub laguna bacriminayo daruuraha waddankaasi si loo helo roob degdeg ah hadii uu alla idmo howlaha lagu bacriminayo daruuraha ayaa dabooleysa qaybo kamid ah baahida biyaha macaan ee ka jirta dalkaasi oo ah mid isi soo taraysa marba marka ka dambaysa iyadoona waddankaasi uu ku dadaalayo inuu ka faa'iideysto dhibic waliba oo biyo ahi xadaafka cadceedda qorraxda oo ah mid aad u daran ayaa diyaaradda nooca laba matooreyda ah waxa ay taagan tahay garoonka diyaaradaha Al-Ain ee ku yaala saxaraha dalkaasi si ay duulimaad dhanka hawada ah u sameeyso ka oo ku aadan hawsha bacriminta daruuraha ninkani oo lagu magacaabo Mark Newman oo kamid ah duuliyaasha xarunta saadaasha hawada iyo dhulgariirada ayaa sheegay in xiriir joogto ah ay la leeyihiin xarunta fulinta howlgallada dalkaasi markasta oo roob da'o waxa kororta xamaasada iyo raaraynta sidoo kalena waxaan maqalnaa farxadda saaxiibadeen nagala shaqeeya xafiiska ayuu yiri diyaaraddan aad arkaysaan waxa ay qaadaysaa haaman milix ah waxa ayna ku shubaysaa daruuraha si loo helo roob degdeg ah hadii uu idmo Imaaraadka oo lagu tiriyo 10 dal ee ugu faqrisan dhanka biyaha macaan ayaa celcelis ahaan roobka ku da'a sanadkii waxa uu gaarayaa 78 millimeter marka la barbar dhigo dalka Britain oo sanadkii roobka ku da'a uu gaarayo 1220 millimeter ayaa waxa uu noqonayaa tiro aad u yar roobka ku da'a dalka Imaaraadka Carabta sida uu sheegay bangiga caalamiga ah Umar Al-Yazadi ayaa sheegay marka la isbarbar dhigo biyaha daruuraha ka yimaada ee la bacrimiyo iyo kuwa lagu sifeeyo harooyinka in ay qarash yar yihiin kuwa daruuraha ee la bacrimiyo waddanka Imaaraadka Carabta ayaa isticmaala 14% biyaha caalamka ee la sifeeyo waana dalka labaad ee ugu weyn ee dunida dhanka soo saaridda biyaha la sifeeyo marka laga imaado waddanka Saudi Arabia oo ah waddanka koobaad hase yeeshee qarashka ku baxa diyaaradaha bacrimiyo daruuraha dalkaasi ayaa aad uga qarash yar lacagaha ku baxa harooyinka lagu sifeeyo biyaha dalkaasi taas ayaan ku soo gabagabaynaynaa markana aan dib in kugu celiyo saaxiibkay Cabdullaahi Axmed Nuur iyo stuudiyaheena magaalada Muqdisho